السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناسن داود مeel kasta adduunka ku joogtaan ku soo dhawaada bartayda Facebook Yunus Qays. Waxaan idin hayaa warar xasaasi ah oo kamid ah dagaalkii ka dhacay Walaweyn iyo deegaanada hoos yimaado ay kamid tahay yaar bari weyn oo dagaal culus ku dhex maray ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed iyo niman qowleysata oo isbaara meesha u taalay. Haddaba waxaan rabaa inaan faahfaahiyo qowleysatadan dad baa u doodaya uu kamid yahay nin xildhibaan oo xildhibaan baarlamaan ah oo federaal waliba ba waxa la leeyahay waninka wanin xildhibaan la leeyahay wadaar aamin jeeso wanin xildhibaan wanin weyn oo oday ku tajira hadii marka dawladda federaal Soomaaliya waxaan aanu kala garan lahayn inay waalan tahay mise inay caadi tahay sababtoo ah wiilayro TikToker marka isku jawaabaan waa la qabtaa waa la xiraa oo waxa la leeyahay waxay sameeyeen kicin bulsho ama kicin dadweyne ama qof haduu media ka hadlo oo qof ama qabiil kale wax ka sheego waa la qabtaa waa la xiraa war ninka 60 jirka oo baarlamaanka dhex fadhiya oo laga xishoonayo oo dadkii ama xildhibaanadii digile mirifle waliba dadka ugu badan baarlamaanka Soomaaliya oo hinda ay ka daawanayaan isleeyihiin bal intaas inuu dhaamo hala fiiriyo haddana aanan cidna juuq u lahayn oo isnaana xishoonin dawladda federaalka maxay ka leedahay sababtoo wuxuu leeyahay wuxuu oogaya dagaal wuxuu isku diray dad walaalaha oo meel wada degan isku deegaana buu isku diray oo leeyahay anagu dad kuwa iyaga wax ma soo gaarin dagaalka lagu soo qaaday waan ku guuleysanay waxaan farayaa bulshada in ay dagaalanto gaal jecel inuu dagaalamo rabo uu leeyahay haddaba dawladda federaalka Soomaaliya waxa looga fadhiyaa adeer gacali hadii xildhibaanada baarlamaanka fadhiyeen oo dadka ugu sareeyay oo dadka metelayay ay dagaal oogayaan maxaa loo la yaabaya dadka TikTokerada oo iska kaftamayo meelahooda beeshashkooda ay ku kala kacsanayaan reer hebel baan ama baasha loo wada dhamaado oo ha noqoto baa loo siman yahay oo qabyaaladda ha socoto ha waarto hamise dadku waaweyn oo baarlamaanka dhex fadhiya ha laga qabto qabyaaladda iyo balada ay la wareegayaan daaraami jeeso mid baa u diraya adeer gacali waxa digtaan Hirshabeelle laga soo doortay adiga deegaan doorashada oo Hirshabeelle oo dadka aad ku matishi hadii aad leedahay macawusley al-shabaab la dagaalamaysa baan haya Hirshabeelle nimanka xawaalo oo maadeerka tihiin oo maxaa ku raad deegaanka tiina dariska tihiin la dagaalamo ka barbar dagaalan maxaa ku keenay Walaweyn iyo dhul digriye meelfle maxaa ku keenay hadii si aad hor dhaqato tahay oo meesha aad daaq iyo naq u soo doonatay si nabad leh ku daa laakiinse inaad dadkii oo aad la noolada martida u ahayd inaad dagaal ku qaadid oo aad tiraadid wala dagaalamay oo ku sharaf daro waxaan ku sheegayaa daba lafta gareen laba kelmadood buu ku soo caabahay labadaan uu ku taagan yahay cid ka celin kartana ma jirto wuxuu yiri adeer gacali qoriga dawladda iyo qoriga al-shabaab qori saddexaad uma dhaxaynay waan runtii ama qofka qoriga dawladdu haysanaya oo nin dawliyo noqonaya oo al-shabaab la dagaalamaya ama al-shabaab noqonaya dawladdu la dagaalamaya wala la diriraya labada wax u dhaxeeya ma jiraan waa kelmadda labaad anoo 20 jir buu yiri baan diiday isbaaro qori taala anoo kunta jira Koonfur Galbeed madaxweyne ka ah adeer gacali cidna ka yeeli maayo buu yiri inay isbaaro qori wadata horan uu yiri hadalkaas marka daaraadin miinjeeso waxa leeyahay adeer kelmadda madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen horu hal ku dhigiisa weeyaan cid ka celin kartaana ma jirto labada kelmadood uu hore u yiri ilaa hadda uu ku taagay hadda waxaan ku sheegayaa nimanka masaakiinta aad soo lugaysan wixii ku dhacay waa la arkay oo orodkooda hadaan ku soo wad yaabaysa Allah musta'an haddana waxaan arkay kuwa meelaha ka qaylinayo qaaqliyaal oo cabtooy oo leh anagu abgaalada gaal jecel garab taagan warartu wax dagaalamaya ma aha qabiil waa dawlad iyo niman qaadul dariiqa oo isbaaralay ah Koonfur Galbeed isbaara adeer kama soconayso inta kuwii bardaalay joogay ba laga diiday iska daay adiga waxaad tahay qof oo deegaan ahayn oo martiya baa tahay kuwii deegaanka u dhashay oo gobolka Baay u dhashay ba laga diiday adeer gacali adiga cidna ka yeeli mayso waxaan ku leeyahay nin weyn baa tahay odaya sharaf baa leedahay wali waa ixtiraamaya baarlamaanka cid raxaway kaga badan ma jirto Soomaalidu marka la isku geeyo xildhibaanada ugu badan oo maxaa ku raada gobolada laga soo doorto meesha ugu badan waxay ka yimaadeen Koonfur Galbeed laakiin intaasna waa laga xishoonaya bal waxaan isleeyahay ninkan inta inuu dhaamo intiina dhaani maysid horta Koonfur Galbeed xabad laga adkaan maayo cid haysatana qabiil ma raxweyn iyo gaal jecel ma aha waa qowleysata adiga hormuud u tahay waliba adiga aad maal gelinaysid tiknikada u keenaysid qarash gelinaysid si ay Koonfur Galbeed amnigeeda iyo nabadeeda lagu qalalaasa ugu rid taana cid ka yeeli mayso adigana soo raacdaad ciidamada Koonfur Galbeed wasiirka amniga Koonfur Galbeed uu jooga wali ما قرأت
برتيسي وجوغا إذا كيسي وضع تليا سلدق دقمة والوين تليا دليساك وجوغا رجع شلي ماشي كاسو عيصلي إلا كوفيدا مع السيتي حددوا حسكوا هيسي يمو مربع صحافة أنت غرفة ريستي لأن هذا يوتيوبر متهيدة صحافة أنت غرفة ريستي مربع وراني كذا أنا عيدا بفصل معاه بس عايز شو يلو يراك كنت أو ماشي عاد كنت هل كان عندي صومرتا خلاص كل ده ماشي كويس أنت نوالك العيد غير نوالك قبت بل معاه فصح يسمر أنا وياكم دتك عاد فصح يسد الله ده هو دجال منا محيي دتك كانوا والأوجي يران هو يدجن واحد دجن جبلان هو يدجن كونفور قلبان إيه يرى مرتيا بجوده هذا رجع لي سيدا هيران هذا يقول نوشين أو نبضع بدوقون ولا نسان كونفور قلبان سيدا جبلان هذا يقول نوشين أو نبضع بدوقون ولا نسان هديك كلامنا كلمة عبد العزيز حسن محمد لفت قرن هذا رجع على قرية الدولة دي وقرية على شباب قرية ستحارو دحين مايو isagoo labaatan jir ah inuu diiday isbaaro qori wadata maanta iyadoo 2024 la marayo madaxweynaha koonfur galbeed uu yahay cidna ka yeeli maayo daahiro taas qalbiga ka gasho adeer gacali dagaalkan ha socdo dawladdu waxaan leeyahay guul bay dirjeen qowleystan waxaan leeyahay adeer dhawn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh